caqliga fayoobi waxa uu ku jiraa jirka fayow ciyaaruhuna waa furaha isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada iyo ciribtirka qabyaalada ciyaaruhu waxay ka hortagaan aafooyinka xunxun sida balwadaha tahriibta iyo sidoo kale rabshadaha ay dhalinyaradu samayso dhalinyarada Somaliland waxa lagu qiyaasaa inay tahay 70% sidaana waxa mas'uuliyadooda ku qaaday xukuumadda haatan talada dalka haysa ee uu hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi taasoo ku guuleysatay doorashadii ka dhacday 13 November 2017 haddaba dhalinyarada sportska gobolka Togdheer waa kuwa ay ka muuqato dayac diifiyo darxumooyin dhinaca sportska ka haysta kuwaasi oo ka helin kaalmo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha sportska gobolka Togdheer iyo isuduwaha gobolka Togdheer haddaba halkani waa goobaha ay ku ciyaaraan dhalinyarada sportska gobolka Togdheer taasoo ku booqday TV-ga caalamiga ee Somali Cable TV si aan ula dareeno nolosha cakiran ee la dariska yihiin dhalinyarada gobolka Togdheer isuduwaha gobolka waayo niyow shaqadiisii ma hayo u gabay isuduwaha gobolka ma ahaniyo waayo niyow inuu sameeyo dadka gobolka dhan baa loo doortay laakiin dhinaca qura uu deekaranayo dhinaca qura uu ka shaqeynaya shaqadiisana waa dhinac kaliyeed runtii diic weyn baa ka muuqda markaad eegto dhinaca sportska waxaan ognahay ahmiidaha ay siiyaan dadyoga horumaray sportska maqolad carabi waxay tiraahdaa fi aqli saliim fi jism saliim aqliga wanaagsan wuxuu ku jiraa horta muddadii aan sportska ku dhex jirnay markii waxaan marinaa xaaladii ugu liidatay haddaan nahay gobolka Togdheer maalinta ka dambaysa uu ka sii daraya horta anagu wasaaradda sportska sideed ma balihinba cid sportska ka socota dawladda markaan ma aragno garama ma lihin wareeg lama furo sidoo kale cid dhiirigelisa sportska marnaba cid doonta noqoto ma aragno dhalinyaradu aad bay u dayacantay waad arkaysaa qaar kale waa kuwa ku ciyaaraya gudaafado taasoo naftooda halis gelinaysa halka qaar kale ay ugu jiraan halis baabuurta kala duwan ee magaalada Burco haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada sportska gobolka Togdheer ayaa nooga xog waramay xaaladdan ay ku sugan yihiin sidoo kalena waxay noo sheegeen isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha sportska gobolka Togdheer in aanu simin dhalinyaradaasi balse uu ka shaqeeyo dhinac qura waa siday hadalka u dhigeen waxaana ka mid ahaa hadaladoodii waxaan u sheegay istuwa hortaana wax istuwa leeyahay ma aragno haddaan koob ciyaarayno haddaan wareeg ciyaarayno haddii si kastaba noqoto ma aragno isuduwe waliini garoonka lixle stadium waxaan leeyahay istuwa aan u dirayaa ciyaartooyada sportska isuduwaha meesha haysta balaayaas waxaan leenahay sidan isma gobolka in la kala qaybiyo ma hadde garoonku waa ila koob waa aragtaan garoonka Seelada sidoo baabay dhinaca kale waxaa jirta ganacsato iyagu ku soo kordhiyay garoonno casri ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xidhan yihiin garoonnada waaweyn ee kubadda cagta ee magaalada Burco sida garoonka weyn ee Alamse Stadium ee magaalada Burco kaasoo muddo hal sano xidhan hadow walaaleen kab weyn bay kaalin muhiim ah ka qaateen waayo wadagoodeenka muddo dheer u xidhnaa garoonka kubadda cagtu inta kadib dhalinyartu may waxaan ka caawinaa anagu sidii aan sportska hoos ugu soo dhici lahayn maxay tolay aan hadii garoomadii waaweyn ay xidhan yihiin ay u sii wadan lahaayeen ciyaarahooda ayaan ka caawinay oo adiga arkada waa la ciyaarayaa lagu ma kala baxo mana aanu isku daynay inaanu la xiriirno isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer noomay suura galin waa Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco.